nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aroor kalamaano armaxay meesha dad iskugu tageene warmaya waa kala wareegniyow weligeedaa la ogaa caasimadda tookiyo jabaan meel ka dad badan maba jirtaba waqda miya warwaralan kun sheego ee masaarkii lafta gareengu meel dadka badan iska seedeen dabkii ka kacay bakaaraya soo bamiya jee arooda ani warkaa iga boobinay isiga maskaxdiina meeshan uwada iyo meeshan uwadin wax islaba ma ee warkayga dhegaystaan idin leeyahay muxaadaradii shiiqeeyaawe maalin horaato lambar 4 agteeda laiskugu tago dadka qaadi waysay istaadiyo koonisaa laiskugu yimid allaahu akbar dadkii dhammaay haddana qaadi waysay arooda dadkaan wax u daneeya la iimaana diinta say u rabaan le iya aroo warnimada cabdullaah wuxuu yidhi dadka aanu diin waa rabaan waxaase diidan daalimiin war shiikhuu iscafiyuu yidhi mucaaradkii iyo dawladdu ma iscafiyeen war mashaaba la cafi karaa war soomaaliya culummo waaweyn oo muxaadarooyin akhrisaa waa dhooban yihiin wadaadkan jidka loo xidhay oo dadka tirada badan koonis isugu geeyey ma ololo siyaasadeed baa muxaadaradiisu oo nabad iyo nolol ka dambaysa wax kale dadkaas kuma keeni karaan war dogon baa taa wadaadada markii masaajide iyo inay guriyaajo muxaadarada dhaafo wayti lankii wadaad oho meel fagaare dadku walanka sheega inoonan iska saada meeli ka jartamay warnimayo 2020ka ama la arkaa Sheekh Kenyaabe musharax madaxweynaha yaa ka xiga maxaa se ka reebaya dadkeenu kalamaan waxaan kaaga digayaa qarannimada dumin ku ah xeerkiiyo dastuurkana duuduuwe tuur ku ah dalka horumarkiisana ku ah dibudhac joogtaa derisnimo wanaaggiyo nabaddana dareen ku ah qoyskana dubaaqiyo daqar lama filaan ku ah sharafta iyo dadnimadana dulmi iyo xadgudub ku ah shareecada iyo diintana dembi kuwa kabaa'ira deganaanta guud iyo dunidana halaag ku ah xaqdarraa wax loo dilay waana lagu degdegayaa had maadowga laga dhigay war ma bilowdeen hawdaa iyo nawdaasi waa shaqadiinniye waryaaraheen hawda iyo nawda iyo qawdu meeshay maanta ka yeertay waa jubbada hoose waana baar sanguuni ciidamadii dawladdoo meel saldhigoodii fadhiya ayaa shabaab soo weerareen 3 qarax oo 3 gaari lagu soo raray ayay 3 dhinac kala soo galeen dagaal toosina meeshuu ka dhacay war ciidankii meesha lagu soo weeraray dawladdu waa isdifaaceen hadda waa la yaabaa saaka waxa meesha amiir daba gadoomaya aroor kalmaano ay dhegaysta shabeellada dhaxan war idinka siinaa dagaal beeleed waa soo dhici jiri waana dhici jiri laakiin midka hadda dhacay degaanka ceel baraf iyo nawaaxigiisa isku jirkiisaba dagaal beeleed waa ka duwan yahay ilmo iyo duqooshin iyo wax oobo dhilba ka mamnuuce aad dhoq lagu siiye intee loo socdaa waxa laga raba maxaa yihiin uljeedka laga leeyahayna maxaas yahay kalamaanay warnimayaw howdi iyo inay bugduka dhiidii Kenya بوليس جو مناغنا بوليس كي هندي أو چوري هنساب كه چوري هنساب كه ما بوقه هاني أرايان عمل مناغنا برامي تجراه كدم بيتي يار إلّن كه أبا بولي أنت بنكابسن عرين مغا جنوسين شاوي ہے ناگ مرين ابدلی ليه يهوب كنكاد ياسيان هايس يلري كيميله هوسيه كينيا تك هاي لباتي شانجر كه هاي سدل شيغي usin magaja iganta ka dhikan maduko madaka ka huko kabasa wale rai wariyo shababka Hindiya iyo shababka Kenya iyo kuwa Soomaaliya awrba wada dhalaadar xagad kala geelisa warniyo been sheegine shabaab iyo Daesh meel ma wada daaqan waryaaya waxaad sheegaysaan war maahane wax badan baa la yiri dawladdu dhalinyaro ku xireed meelahaas dalal kale oo burcadnimadeednimo ugu xiraabay keentay oo xabsiga ka soo daysay waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo burcadnimadeednimo badda uga qabteen dawladda sheeyahay oo maamulada Puntland iyo Somaliland
loo dhiibo lagu ergey kuwaas dawladdu ma oga miya waxaan idiin sheegayaa dhallinyarada aan raadinayno kama raadinayno dalka gudihiisa waxaan ka raadinaynaa xabsiyada shisheeye waryaaraheen madaxweynuhu waa kii maalmo ka hor baydhabo aaday caleemasaarka lafta gareenna ka qayb galay halkaa uu ku soo daahay war madaxweynuhu hadduu baydhabo ku soo daahay roobow macafi yaa oke warnimiyow mayga tatata'an latin baydhawo jannaaylankiisaada inoo hakadaaye meeli ka jarta maaye war xasan daahir weys xafisku afkiisu uga xihan yahay warnimayow war ma waysaan in abwaanguure u sharaxan yahay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed war dhegiyoonay dhakaar walaska dheye gaasinte kukohaya ay ogolaasho ka heliye ayna ku fado ay meeliyeede war caleemasaarka madaxweynaha puntland 25 bisha wixii ka dambeeya u dhacayaa baa layidhi toloma arbaca lagu beegi doonaa mase maalin kale war puntland qarax kama dhicine qarax iyo baabuur ku raran baa boosaaso lagu qabtay ee talow yaa u soo warramay madaacish baa ka shiftay baabuurka la qabtay raashin maa ku rarnaay warniyo nimankaa waa ka ciidan fiican yihiin jenaraal asad baa u jooga baawe aa iska hadlaysaane madaxweynaha puntland caleemasaarkiisa arbaca laguma aadinaaye madaxweynuhuna reer arbacay kama tirsana war waxaa la yidhi gobollada galgaduud iyo bakool al-shabaab carruur iyo waxay ka afduubteen ganacsato ma shabaabkaa waalan mise adaa waalan galguduud iyo bakool iskuma dhowe fud abbay faadimo waa taas adaa sabaabka meel kastay joogaane adaa waalan waryaalahe dhegaysta idinkuna waxaa ku wareersantihiin shabaab iyo waxaynaa galaya qaraxyo dal somalilan nahay annaguna waxaan ku wareersannahay doorashooyinkii doorasho badnidina haddaaba muuse la doortay waryaaraheen nimayow anigu waxaan la yaabay wariyihii coldoon la dhihi jiray ma isagaa waalan mise dadkaa ka waalan somalilan hadduu tago waa lagu xidhaa jigjigo oo lagu soo dhoweeyena haddaa lagu xidhay ninka intaasoo ummadii kama wada gardarree see wax ka yihiin war sina waxba kama ahee waa cid walba u jaba ayuu noqday ninkii war ninkaasi in la xidho asagaa kasbaday magaciisayna ku cadda sababtoo ah coldoon waa balaayadoon war anigu waxaana subaysaan garan maayee inuu kala kaxaynayo meesha warkaa u dhanow adeerow gacaliye soo baraha naga daaqay waa ku aqoonsan doonnaaye owi image mae aqoonsiga gowdhan ani diidi arooda balaay baa ku soo daannee kala joogoo dhagaxaantai ulasha imidada wadin dhiga iscafiin baa ka wadaa waryaa kaalintiinna ka gala shaqada waddanka ka socoto wanaagsan waryaa idin cafin maynaa naga taga